دكتورو بسم الله الرحمن الرحيم waxaa qabsoomay kulanka toddobaadlaha ee taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ka qabsoomay xarunta taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed shirkan waxaa warbixin looga dhageystay taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir oo ka warbixiyay xaaladda amniga caasimadda asagoo xaqiijiyay in toddobaadyadii la soo dhaafay ay jirin wax falal argagixis oo laga diiwaan geliyay caasimadda sidoo kale waxaa warbixin laga dhageystay taliyaha hoggaanka baarista dambiyada CID oo aad u faahfaahiyay arrimaha la dagaalanka argagixisada heerarka ay marayaan iyo in guulo waaweyn laga gaaray dhanka la dagaalanka argagixisada sidoo kale waxaa warbixin laga dhageystay isla taliska la dagaalanka argagixisada oo asagana howlgalo fuliyay toddobaadkii tagay howlgaladaas oo lagu guuleystay hadda gacanta lagu hayo baaristooda shirka intii uu socday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu soo saaray go'aano ku saabsan dhaqdhaqaaqa gaadiidka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayadoo la mamnuucay in gaadiid uu leeyahay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed lagu sameeyo garaashyo gaar loo leeyahay haddaba bulshada Soomaaliyeed iyo makaanikiinta iyo dadka gareeshada leh ee guud ahaan caasimadda ku sugan in aanan la sameyn karin ama garaashka lagu soo hooyi karin gaari ku nambareysan taargada booliiska Soomaaliyeed cidii lagu helana talaabo sharci laga qaadi doono dhammaan gareeshada gobolka Banaadir waxaa la farayaa inaysan diiwaan geli karin ama qaban karin ama cilad bixin karin gaari uu leeyahay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed sidoo kale intii lagu guud jiray shirkan taliyaha wuxuu amar siiyay taliska qaybta guud iyo taliska hoggaanka baarista dambiyada CID waxaana lagu amray inay soo qabtaan kana hortagaan dhalinyarada dhaqan xumada ka wada baraha bulshada ee soo badanaya bariyahan ayadoo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ku amray in talaabo sharci laga qaado isbuuciidan howlgal laga sameyn doono sidii dhalinyaradaas baratay dhaqan xumada inay ku baahayso baraha bulshada talaabo sharci loogu qaadi lahaa waa mahadsantihiin